saaxiibada ku xiran bogga Garmaal ayaa dhowaan waxa ayna soo weydiiyeen in aan dalka Ruushka waxa uu leeyahay 20,300 oo taangiyo oo ah nooca dagaalka. sidoo kale dalka Ruushka waxa uu leeyahay 300 iyo qumaatiga u kaca ee dagaalka. ciidanka militariga ee dalkaas Hindiya waxa ay leeyihiin 4,426 taangi oo ah kuwa dagaalka. tirada ciidanka badda ee dalkaas Hindiya waxa ay gaarayaan 295 waxa ayna ku howlgalaan 3 diyaaradood oo ah diyaaradoonka shisheeye ee ugu awoodda badan marka la fiiriyo adduunka oo dhan. sidoo kale wadankaas Ingiriiska waxa uu leeyahay mid ka mid ah ciidamada badda ee ugu fiican adduunka oo dhan. dalka Ingiriiska ayaa 500 oo bilyan oo dollar waxa uu ku bixiyaa miisaaniyadda difaaca. tirada guud ee dadka u dhashay dalkaasi Ingiriiska waxa ay la egyihiin 64,769,452. tirada guud ee ciidanka militariga ee dalkaasi waxa ay gaarayaan 279,230. ciidanka sida rasmiga ah shaqada ugu jira ee militariga dalkaasi Ingiriiska waxa ay gaarayaan 197,730 askari. ciidanka militariga ee dalkaasi Ingiriiska waxa ay leeyihiin 832 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, balse 103 ka mid ah ayaa ah kuwa u diyaarsan in ay weeraro qaadi karaan. ciidanka militariga ee dalkaasi Ingiriiska waxa ay sidoo kale haystaan 333 diyaaradaha qumaatiga u kaca, 49 ka mid ah ayaa waxa ay yihiin kuwa weerarada qaadi kara. ciidanka militariga ee dalkaasi Ingiriiska sidoo kale waxa ay haystaan 227 taangi oo ah kuwa dagaalka. sidoo kale dalkaasi Ingiriiska waxa uu leeyahay 76 askari oo ah ciidanka badda, waxa ayna ku howlgalaan 2 diyaaradood oo ah kuwa ciidamada qaada. kaalinta 7aad waxa ku jira wadanka Japan. dalka Japan waa mid ka mid ah wadamada ugu saameynta badan adduunka oo dhan. dalku waxa uu leeyahay dhaqaalaha saddexaad ee ugu weyn adduunka. waxa ka horeeya oo kaliya dalalka Mareykanka iyo Shiinaha. marka laga eego awoodda militariga Japan waxa uu leeyahay mid ka mid ah miisaaniyadaha militariga ugu weyn. waxa uu sidoo kale uu leeyahay nidaam hub casri ah kaas oo adduunka oo dhan uu la yaabay. dalka Japan ayaa 44 bilyan oo dollar waxa uu ku bixiyaa miisaaniyadda xagga difaaca. tirada guud ee dadka ku nool wadankaasi Japan waxa ay la egyihiin 126,350,398. tirada guud ee ciidanka militariga dalkaasi Japan waxa ay gaarayaan 310,457. ciidanka guud ee howlgallada ku jira dalkaasi Japan waxa ay la egyihiin 247,157. ciidanka militariga dalkaasi Japan waxa ay leeyihiin 508 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka. 290 ka mid ah diyaaradahaasi waxa ay yihiin nooca dagaalka. sidoo kale dagaalka ciidamada militariga dalkaasi Turkiga sidoo kale waxa ay leeyihiin 475 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca, balse 54 ka mid ah ayaa waxa ay yihiin kuwa dagaalada qaadi kara. sidoo kale ciidanka militariga ee dalkaasi waxa ay leeyihiin 2,446 taangi oo ah nooca dagaalka. dalka Turkiga waxa uu leeyahay 194 askari oo ah ciidamada badda ee dalkaasi. wax diyaarado ahna ma haystaan ciidankaasi. dalka ugu dambeeya waa dalka Jarmalka. Jarmalku waxa uu hogaamiye ka noqday siyaasadda dalalka Yurub, halka uu sidoo kale uu maamulo dhaqaalaha guud ahaan ee dalalka Yurub. dalka Jarmalka muddo dheer waxa uu ahaa ummadda ugu awoodda badan adduunka oo dhan marka la qiimeynayo mujtamaca ku nool dalalka caalamka. dalka Jarmalka ayaa 45.2 bilyan oo dollar waxa uu ku bixiyaa miisaaniyadda difaaca ee dalkaasi. tirada guud ee dadka u dhashay dalkaasi Jarmalka waxa ay la egyihiin 8,594,017. tirada guud ee ciidanka militariga dalkaasi Jarmalka uu leeyahay waxa ay la egyihiin 208,641 askari, balse ciidanka shaqada ku jira saacad kasta waxa ay la egyihiin 180,000 oo askari.
ciidanka militariga dalkaasi Jarmalka waxa uu leeyahay 714 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, balse 92 ka mid ah ayaa waxa ay yihiin diyaaradaha dagaalka. ciidanka militariga dalka Jarmalka sidoo kale waxa uu leeyahay 432 taangi oo ah kuwa dagaalka. dalka Jarmalka sidoo kale waxa uu leeyahay 81 askari oo ah ciidanka badda ee dalkaasi. saaxiibayaal, si aad ugu xirnaataan boga Garmaal, fadlan ka mid noqo saaxiibada Garmaal TV.